Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Waa walaalkiin Simatere insha Allah. Waxaa maanta halkan ka bilaawi doonaa kutubkii yaraa ee arbaciinka ahaa arbaciin annabawiy. Kutubkii afartanka xadiid ayaana bilaawi doonaa insha Allah. Waxaana qoray imaamu nawawi raximahullahu tacaala. Allah u naxariisto. Allaan ilaahay subxaanahu wa tacaala jannada firdaws Allah ka waraabiyo. maxaa yeelay kutubkan dad badanaa ka faa'iidaysteen, marka anagana waxaan rajeynaa insha Allah inaan ka faa'iidaysano. Marka maadaama uu yahay 40 xadiis, waxaan ka dhigi doonaa ilaa iyo 20 ayaan ka dhigi doonaa video amba 25 insha Allah. Maadaama oo 40 yahay, marka 40 loo qeybiyo 20 wuxuu noqonayaa insha Allah 40 loo qeybiyo 20 laba xadiis oo noqonayaa insha Allah. Marka xadiis waxaa jiraan oo xogaa dhaadheer ayaa waxaa laga yaabaa inay gaaraan marka 25 inay gaaraan baa laga yaabaa. Marka insha Allah si mar walbo xasbul waxaan fiirinaynaa insha Allah xasbul xadiidka markaas intuu la egyahay baan fiirinaynaa insha Allah. Kuwa yaryar laakiin labo kama badinayno, waaweynkana hadduu aad u dheer yahay insha Allah hal xadiis ayaan ka dhigi doonaa insha Allah. aan gudgalnaa sharkeena. alxamdulillahi rabbil caalamiin, wasalaatu wassalaamu calaa rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam. الحديث الأول الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. كتب الأمان بخاري أوين مركل بلاوايو كتب أصلا وحيك بلعبتان حديث كان أو وريي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. مرك حديث أو كحد لايو نيدا شيء والبمركب بلاويسيت waxay ka bilaawdaan ama waxay ka bilaabtaan niyada marka hore inaad niyeysato. Marka insha Allah walaalkaygi kutubkan hadaad rabtid inaad xifdisid, marka hore waa inaad niyeysataa. waxaad niyeysanaysaa 40 xadiis inaad xifdin doontid, maxaa yeelay maalin walbo 2 xadiis hadaad dhakadka qabatid oo fahantid, ilaahay subxaanahu wa tacaala wax weyn oo ku siiyey. marka 40 xadiis ninka xifdiyeyna waa nin caalim ah. marka walaalayaal xadiidka waxaa warinaya saxar u sheegnabo amiir almu'miniin abi xafsa aabaheedi waana cumar bin khadaab. xafsa aabaheedi waa cumar bin khadaab. ayaa warinaya xadiidka. wuxuu yidhi: qaala samictu waxaan ka maqlay rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam, rasuulka ilaahay waxaan ka maqlay yaquulu isagoo dhahayo: innama alacmaalu acmaashu waxay ka ahaatay binniyaati niyada xaggeedii, wa innamaa likulli imri'in maa nawaa, qof walbina wuxuu niyeysto ayuu leeyahay. faman kaanat hijratuhu qofkii ahaatay faman kaanat hijratuhu ninkii hijradiisii ama meesha oo doono oo u socdo ilallaahi wa rasuulihi, ilaahay xaggiis thawaab ka raadinayo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala meelo ajar ugu raadinayo u socda, hijradiisa ay noqota cilmi barasho ha noqoto in qur-aanka oo soo barto, ha noqoto meel sadaqa oo geenayo, ha noqoto dadka booqanayo oo ilaahay dartii u booqanayo, ha noqoto waalidkiisii oo silaturaximkii isagoo ku dadaalayo, ha noqoto meel safar, ha noqoto oo u aadayo waxbarasho. dhammaan marka fahijratuhu ilallaahi wa rasuulihi, ninkaas ilaahba subxaanahu wa tacaala hijradiisii iyo rasuulka agtiisii ahaatay. ilaah baa abaalmarinayo subxaanahu wa tacaala, ninkaas ajarkiisa ilaah baa siinaya subxaanahu wa tacaala. waman kaanat hijratuhu lidunyaa, qofkii hijradiisa noqoto adduunyo oo yusiibuhaa adduunyada markaas u socday asiibo, aw imra'atin haweeney oo u baxay oo yankixuha ama uu nikaxsado
فهجرته إلى ما هاجر إليه. ninkaas yacni nina adduunyo u aaday soo adduunyo usoo helo, ama meel ayaa wuxuu aaday naag inuu soo nakaxsado, waana soo nakaxsaday. Fahijratuhu ilaa maa haajara ilayhi, hijraadii wixii markaas adig u socotay adduunyada ahayd ama naagta inaad soo nakaxsato, yani ajarka ma helaysid. Fahijratuhu ilaa maa haajara ilayhi, hijradaadii fahijratuhu ninkaas hijradiisa ilaa maa haajara ilayhi, wuxuu u hijrooday ayuu helayaa. xadiidkana waa rawaahu imaam almuxadithiin abu cabdullaahi moxamed ibnu ismaaciil ibnu ibraahim ibnu mughayra ibnu bardizaba albukhaariyu aljacfiyu raqam 1. waa abu xuseen muslim binu xajaaj binu muslim qushayriy annaysaburiy ayaa la yihahdaa رضي الله عنهما في صحيحهما اللذين هما أصح الكتب المصحف في صحيحهما ومسلم iyo بخاري. إن شاء الله xadiidkan ayaan kusoo gaabsanaynaa. xadiidkan asigaa dheer in la fahmo u baahan. إن شاء الله marka walaalayaal waxaan rajeynayaa inaan ka faa'iidno إن شاء الله inaad sii sheergareysaan oo walaalaha muslimiinta gaarsiisaan insha allah ayaan idinku boorinayaa, si idinkana ajar aad u heshaan. maxaa yeelay rasuulku wuxuu yidhi sal allahu alayhi wasalam, addaalu cala alkhayri ka faacilihi, ninka khayrka dad tusa wuxuu lamid yahay asigoo sameeyey oo kale. walaal sii sheergaray, meel walba ku sheergaray insha allah, si dad kale ugu faa'iidaystaan adigana ajar aa u heshid insha allah. janalka hadaa ku usubtaan insha allah subscribe noo saar, si markaas fiidiyoyaasha kale oo ku xigaan kuu soo gaaraan insha allah. haddaa horena nagu xirneedana jazaak allahu khayr, sii sheergaray. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.